Assalaamu calaykum kulanti wanaagsan kusoo dhawow muuqaalkan dabcan haddaa soo daawatay muuqaalkii hore waxaan ka hadlaynay workspace-ka iyo panelska photoshopka qaabka loo dhiso iyo qaabka u dhisan lahayd workspace adig kuu gaara muuqaalkan waxaan ku qaadan doonaa photoshop toolska ama qalabka ay photoshopku u isticmaasho qofka userka markuu ku shaqaynayo inuu wax ku edit gareeyo maxaan ku rahday waxna ku bedelo documentigii uu markaas isaga u samaysnaana uu wax dheeri uu soo daro marka waxaan arki doonaa toolska inta ugu muhiimsan dabcan toolsku waa tiro badan yihiin si beeris ama guri wada shaqeeyaan waxaan arki doonaa oo ku sharxi doonaa muuqaalkan kooban inta ugu muhiimsan oo sida caamka ah la isticmaalo shaqooyinka intooda badan lagu qabto marka saan u bilowno waxaan u baahnaa inaan soo furno documentiga aan u talagalnay tutorialkan waxaad tagaysaa folderka ay ku jireen casharku waxaa kasii dooranaysaa introduction waxaa kasii dooranaysaa tools dan wax kasta kala soo baxaysa faylkaaga ku jira ay saaran yihiin maxaan ku rahday tufaaxda iyo koobka marka faylka inoo soo furno dabcan dhankaaga bidix ee photoshopkaaga haddaa fiirisid wax kaaga muuqda panel ay wax ku taxan yihiin waxyaalo tiro badan oo rectangle iyo aduu waxyaalo maxaan ku dhahay shape-kooda kala duwan yahay kaas ayaa waxaa la dhahaa photoshop toolska halka kaaga muuqda mid walba shaqo gaara iyo qaab gooni ayaa loo isticmaalaa waxyaalaha sida gaarka uga sameeyeen tusaale ahaan doon film toolska kaaga muuqda waxa laga yaabaa 90% ama intooda badanba inay hoos ku leeyihiin falaariya falaarta kaaga muuqata waxay ku tusinaysaa inuusan toolkan kaligiis ahayn ee tool kale ku hoos jiro oo tusaale ahaan kan click siiyo dabcan waxa ii soo baxay right click dan siiyo waxa ii soo baxay kuwa kale ku hoos jira oo isla shaqadu qabanay laakiin si qaab kale u qabanay kan sidoo kale mostly waa qaabkaas wax yar waxa ka dhiman oo aan lahayn zoom toolka iyo move toolka ma intooda kale waxay leeyihiin falaartaas marka hadaan ku bilowno move toolka waa loo isticmaalaa in wax lagu move gareeyo tusaale hadaan u baahdo inaan faylka move gareeyo ama cabirkiisa weyneeyo ama yareeyo move toolka soo qaadanaya isagoo ka xaqaynaya qaabkaasan marka move toolka u isticmaalaa kan ka hooseeya waxa loo isticmaalaa waa rectangular marquee tool baa la isku dhahay intaan oo dhan marquee toolkaas wuxuu ku suurtagelaya inaad wax ku select gareyso wax particular tusaale koobkan hadda move gareynayn haddaan rabo inaan qayb ka mid ah select gareeyo rectangle ahaan u select gareeyo kaasaan soo qaadanay koreeya intaasaan ku select gareynaya selectionkana wuxuu ka dhigan yahay Photoshop waxay isticmaashaa wax loo yaqaan selection basic oo wax kasta u baahan tahay inaad wax ka bedesho inaad isaga doorato maadaama wixii wax technical yahay wax laga qabanayo tusaale ahaan haddii wuxuu layer yahay layerka soo dooranaysaa si guud oo soo dooranaysaa haddaad layerka qayb ka mid ah dooranaysidna waa inaad selection ahaan isticmaashaa toolska qayb ka mid ah isticmaashaa kan oo kale soo qaadataa oo inta u baahan tahay ku select gareysaa markaad dad maxaa kale rajaynaysid ama aad wax kale ka bedelaysid markaa ku qabataa qaabkaas aad wax uga bedeshaa qaabkaas marka selectionka aimka laga leeyahay ama ujeedka selectionka wax loogu doorto ay ka mid tahay marka haddaad si afargees ku doonaysa kana soo qaadanaysa haddaa oo u baahan tahay kana soo qaadanaysa oo tufaaxaas hadna oo kale ka rabo qaabkaas aan soo qaadanaya kadib baan ama maxaan ku rahday goynaya intii ka xaynaya ama color ka bedelaya ama waxaan rabaan ku sameynaya markaas oo wixii waxaan barnaamijka tiraya hadaan rabo selectionkii marka qaabkaas u shaqeeya markaad select gareynaysid ama ka soo qaadan kartaa ama kana soo qaadan kartaa haddaa oo baahan tahay elliptical ka soo qaadanaysa haddaa rectangle u baahan tahay ka soo qaadanaysa wax ka hooseeya isla selectionka waa ku jirnaa weli wax ka hooseeya lasso tool oo ah mid free hand ah adigu gacantaada ku samaysanaysa kuwan oo waxay go'an ama rectangle go'an oo iska jiidita inaa weynayso yarayso ma laakiin kan waxa awood u leedahay inaad adigu waxaad u baahan tahay qaybta u baahan tahay shape-ka u baahan tahay samaysan kartid selection nooca aragtida kan horeeyda soo qaado click baan siinaya waa ku jiidayaa qaabkaas aan ugu select gareyn marka si daayo isku dhigaya selection qaabka uu soo sameeyaa ama qaabkaan rabo tusaale saas oo kale mid noocaas aan rabo hadaan rabo dhag selection noocaan rabo oo sameeyaa baan ugu select gareynaya waxa ka hooseeya isla mid polygon laakiin polygon waa isla free way adaa wax dood qaabka lagu sameeyaa laakiin waa kooban yahay controlkaaga waa kooban tusaale ahaan hadaan u baahdo inaan saa u select gareeyo xukuma jiido jacno waa xariiq dheer buu noqonaya laakiin qaabkan waxaan doonaa waxay tahay inaan dhag siiyo meel kale tiyo dhag siiyo saa dhag siiyo meel polygon geeska kale aan wax doorto waxaan ku dooran karaa waxa loo yaqaan polygonal toolka qaabkaas u shaqeeya wax ka hooseeya magnetic oo la socda magnetic marka wax ku suurtagelinaya si magneta inaad wax doorto tusaale kan wuxuu soo zoom garee wuxuu detect garanaya colorka tusaale tufaax weyn oo dooran tahay saas aan u wareejinayna marka hamar baa click siinaysa waa raacsiinaysa isaga raacaya inta rabtid
isaga raacay marka saas ugu dhigdhigaya dhag qaabka rabtid buu raacayaa qaabkaas marka wax ku sameynaysaa waraacsiinaysa tartiib oo raacinaysaa tartiib intaa la rabtid baad u raacinaysaa adigu aan maxaan ku rahday click siin hal markii u horreysay baa click siinay taban gacanta un baa raacinayna maaha isaga raacaya dhag uu isu tagayaa wala isu tago isu dhawaado click siinaysaa suu kaa dhigaya waa garta wax ka hooseeya isla quick selection oo ah inaad hal mar wax ku dooran karto click markaan siiyo intaasoo dhan bay select gareynaya dan intaasoo kale ku darnaya dan kaas kale ku darnaya selection qaabkaas u shaqeynaya isla meesha wax kula jira isaguna mid isla shaqadiisa qabanaya laakiin ka yar duwan isagu wuxuu yahay one kaliya wixii isku kala raba isaguna qabanaya hal mar dhagmasiin intaas dooray dhagmasiin intaas dooray dhagmasiin saas u shaqeynaya waxa ka hooseeya wax loo yaqaan crop tool oo ah tool caan oo xataa smartphoneska ku jira oo loo isticmaalo wax lagu crop gareeyo tusaale haddaan u baahdo documentigayga inaan intaa jaro intaasaan ku jaraya oo markaan select gareeyo waan ku jaraya oo intii markaa aniga ii muhiim aan go'sanay tusaale waxaa la socdaa isla isaga ka hooseeya perspective crop tool oo ah mid kii hore rectangle buu ahaa dabcan hadda u fiirsatid rectangle buu ahaa kii hore oo inaad size-kiisa weynaysiiraysa ma waxaa kama bedeli kartid laakiin kan waxaad awood u lahayd inaad u qalloocin kartid tusaale ahaan saas oo kale marka u doorto inaan si xagal wax u qalloocin karo tusaale ahaan qaabkaas kale u samayn karo kan oo kale saa u soo jeedi karo qaabkaas waxu jari karo oo documentigiisa u jarayo qaabkaas igu jaraya markaan intaan u baahnay select gareeyo marka inta dheer qaabkaas ugu go'aya documentiga waxaa la socda airdrop oo ah qalin khad ku dooran karto tusaale khadaan casmar ma inaan soo barsado dhagmaasiin waa taala soo gashay cagaarkaan rabaa inaan ku daro dhagmaasiin sidoo kale marka selection qaabkaas u shaqeeya waxa la socda spot healing oo lagu talagalay in meelaha shucaac ama maxaa kale qofka tusaale face oo kale wartaad edit gareynayso qof wejigiis xogan nuurisidaan jajabka ama uga saartid waxyaalaha ku jira ama tushtushta finanka qaabs kale loo isticmaalo isla healing bulsh qaabka la socda marka intaan oo dhan waa isku shaqo waxa uu hooseeyo red a tool oo ah tool aad muhiim ah tusaale ahaan waa aragtay kaamirooyinka marka wax lagu qaado waxa dhici karta dadka inay indhacsaadaan ama maxaa ku rahday soo baad qof ka qaada habeen oo kale ishii casaan baa gay oo ishii wuxuu noqday qof ilcas baa arkaysa marka isha cas daban badana waxa keena baa la dhahaa qofkaas isha bir waa jug kaga dhacday jugtaas waa ama ha yaraato wax aan la dareemin ha noqdo ama jugin ha noqoto marka jug baa keenta oo badana qofkii haddii ishii ama wax mar xanuuntay oo kale inay ishii casaato baa dhici karta waqti kamera laga qaado marka si aad casaankaas oo kale uga saartid baad ishaas soo qaadan kartaa ishii baad kali ku siinaysaa mar casaanka uga saaray soo qaabkaas u shaqeeya wax ka hooseeya brush tool oo brushkii regularka caadiga ah khadda soo halkaas meeshaan color ka dooranaysaa tusaale ahaan bluegaas kala rabaa soo qaatay caadi uu kala rayn karo waa brush caadiya kii caadiga khadda soo ugu daray isaga waxaa la socda pen tool oo isaguna haddaad u baahatid saxiixina photoshop ku dhex samaysid dhag baa siin kartaa qaabkaas aad isticmaalaysid waxaa la ka hooseeya clone stamp oo ah stambo loo isticmaalo wax lagu koobiyo tusaale ahaan haddaan halkaas oo kale khaddaas oo kale rabo inaan halka keeno wax soo qaaday altaan qabanaya isagaan soo qaadanaya click markaan siiyo baan waxaan tagayaa meeshaan u baahanay inaan khaddeeda qaado kalarkeeda altaan qabanaya altaan marka qabto wax iisoo baxaysa calaamada diiradda oo kale diiraddu marka iisoo baxdo click baan siinaya waa soo tagaya marka waxaan tagayaa meesha kale dan baan halkaasaan ku jijiidiya saas u koobinaya marka intii qaabkaas isagana loo isticmaala waxaa la socda pattern stamp oo ah haddaad pattern rabtid halkaa ku dhex samaysid tusaale ahaan patternki baa kasoo dooranaysaa nooca rabtay pattern markaa soo heshid baad ku dhex samaynaysaa qaabkaasaa marka isla patternka loo sameeyaa waxaa kaloo meesha ku jira history bulsh oo ah mid historiga lagu tirtiro waxyaalaha maxaa ku rahday filekan oo kale haddaad awalkiisa hore meelaha kasoo kaxayso kale inaad ku celisid si history ahaan wax u tirtirtid ugu tiraysid baa meesha la socda isaguna waxaa ka hooseeyo aada muhiim ah file 90% la isticmaalo ah waxa wada tool 90% la isticmaalo eraser tool oo masxaad caadiga tusaale ahaan hadaan u baahday kan oo kale wax ka tiro tufaaxda isaga soo qaadanaya dhagma siinaya ku tiro intaan rabo taasna waa very important waxa la socda isla iyada magic eraser tool oo hal mar wax tiraysa intaas cagaaran bay halaan click si aad u tiraysa intaan hal loo saari kartaa intaan hal loo saari kartaa qaabkaas iyada noo shaqeysa waxa kale la socda gradient tool ba ka hooseeya oo ah
inaad tusaale ahaan background kale marka u baahan tahay inaad dhowr color isku jira inaad samaysid kaasoo kale aan soo dooran karaa. marka isaga markaan doorto click siiyo halka kala soo right click siiyo isaga la soo baxo halka waxa iga soo baxay meeshaan color ka dooran lahaa click baan siinayaa waa ii soo baxaysaa then colorkan u baahanahay kanoo kale aan rabaa waa ku doortay saas aan u jiiriyay qaabka markaan soo doortay qaabkan u isticmaalay waxay tahay meeshaan ka bilaabaya tusaale ahaan halkaasoo kale ka bilaabi kara ka wajiidaya ilaa mees kale dhag labadii kale buu ii sameynaya dhinaca kale ka bilaabaya dhag labadii kale kale uu sameynaya qaabkaas markaas ugu shaqeeya. waxaa ka hooseeya isagana bain bucket oo ah inaad wax rinjiyeysid tusaale ahaan tufaaxa rabaa inaan colorka bedelo halkaan aan tegaya isagaan soo qaadanaya isaga markaan soo qaato colorkaan dooranaya markaan rabaa inaan tufaaxa ka dhigo tusaale waxaan ka dhigayaa oo kale jaalle markaan doorto waxaan dooranayaa kan halmaan dhagsinaya saasuu tufaaxi kale ugu bedelmay. marka wax awood ku siinayna hal mar wax isku kala colorka bedeli kartid. isagana blur tool waxaa loo isticmaalaa in focuska lagu saxo footooyinka oo kale tusaale ahaan haddaan u baahanahay in caleentaasi fiican loo arko laakiin kan aan la arag blur toolkaan soo qaadaya then kanan baan ku xoog saa ugu jijiiriya qaabkaas uu shucaa u gelinaya marka qaabkaasaa loo isticmaalaa. waxaa ka hooseeya dodge tool oo ah brightnesska loo isticmaalo tusaale meel xog daartina xoga cadday sidoo kale wax soo qaadaysaa isaga soo qaadaysa then baad ku celinaysaa qaabkaas marka u cadaynaysa si fiican fiiri meesha wax soo cadaanaysa qaabkaas uu shaqeeyaa marka wax loo yaqaan dodge toolku. waxaa ka hooseeya pen tool oo lagu sameeyo selectionada oo kale wax kaloo lagu sameeyaa wax loo yaqaan shape ku gaara tusaale ahaan hadaan rabo inaan selection ama shape bath oo kale sameeyo labadaas aan wada leeyahay marka waxaan samayn karaa waa ku dooran karaa qaabkaas oo kale aan isticmaalay marka isaga qaab gaar u shaqeeyaa. tusaale ahaan wuxuu shaqeeyaa click markaan siiyo halkaasoo kale aan click siinayaa then baan qalooc u samaynayaa dhag qalooc qaabkaas oo kale u sameeyaa halkoo kale aan tegayaa then baan qalooc samaynayaa halkoo kale aan tegayaa then baan qalooc samaynayaa qaabkaas markaan u shaqeeyo oo qaabka u select gareeyo isku wada daro baan right click dhahayaa then waxaan leeyahay make selection okay baan dhahayaa ama markaasaan waxaan ka dhigayaa shape qaabka u samaysan oo kale. pen toolkuna qaabkaas u shaqeeyaa. waxaa ka hooseeya oo very important waa text ama tape oo isagu marka click siisi soo qaadid meesha qoraal ahaan u isticmaalaysa qoraalka meesha kasoo gelinaya photoshopka marka laba qaab uu shaqeeyo in horizontal ahaan u isticmaashid iyo vertical u isticmaashid hortaas darteed vertical rabtid qaabkaas u qoraysa qaabkaas u shaqeynaya ma jeeda. haddii aan rabo inaan vertical ka dhigana right click baan siinaya kana soo dooranaya horizontal ka dhigan wada kana soo dooranaya qaabkaas u shaqeeya wajiifka caadiga qoraalkii sidii normalka u qormay marka saas u shaqeeya wax loo yaqaan text toolku. wax ka hooseeya path selection tool oo si gaar ah ula shaqeeya pen toolkan isagana wax in pathka iyo wadadaas samaysa lagu select gareeyo wax lagu bedelo. wax ka hooseeya shape tool hadda u baahan tahay wax dheeri kusoo darsatid tusaale rectangle oo kale hadaan rabo inaan kusoo darsado san soo click siinayaa then meeshaan u baahan ku jiiriyaa rectangle way samaysan yahay hadaan u baahdan oo kusoo daro right click baan siinayaa meeshaan kala soo baxaya. hadaan u baahanahay inaan kusoo daro polygon sidoo kale isaga saasaan usoo sameynaya. hadaan u baahanahay wax dheeriya ama shape caadiya oo bahal ama wax kale oo caleen oo kale ka soo saaro isagaan dooranayaa custom box dooranaya customkan right click baan siinayaa go'taan meesha dhex imaado halkaas waxaan u baahan ka dooranaya wax walba ku jira mostly waxyaala jira oo ku jiraan oo shapeska qof oo kale waa kan laba qof qaabkaas oo soo qaadi karaa qaabkaas marka wax loogu soo daraa wax loo yaqaan selection waxa shape ka qaabkaas loogu soo daraa. isla meesha waxa ka hooseeya hand tool oo loo isticmaalo manuuverinka tusaale ahaan tan soo zoom garay bahalkaas anoon celin darabna geesaha dhan wada arko hand toolka soo qaadanaya ku kaxaynaya marka dhag meeshaan rabo ku kaxaynaya hand toolka saas ay suurta gelisaa. waxaa kaloo meesha ku jira iska hooseeya oo meesha ka bax ka maqnayn rotation tool oo wax lagu rotate gareeyo tusaale ahaan isagaan soo qaadaya waa ku wareejinaya intaan rabo rotate gareeyo intaan rabo soo jiidiyo ku wataagaya jiifinaya qaabkaan rabo طبعا waxaa loo isticmaalaa rotate baa loo isticmaalaa qaabkaas isagana loo isticmaalo. waxaa ka hooseeya zoom tool oo ah inaad kusoo zoom garaysatid halkaasaa plus iyo minus ka dooranaysaa hadaad soo dhaweynaysidna plus taad dooranaysaa hadaad fogeynaysidna minus taad dooranaysaa. marka toolisku intaasaa muhiim ah. waxaa kaloo iyadana important ah inaad ogaatid waxyaala ay tooliska sameeyeen baa jira tusaale ahaan mostly tooliska markaan kanoo kale isticmaalayo haddaan u baahdo inaan
qayb kamid ah move gareeyo walaxdaas kala daraya move gareeyo anoo kan u activate gareysay طبعا inta ka adila waqti bay qaadanaysa laakiin waxa sameeynaya control ba qabanaya move tool way activate gareysmay oo kaxaya dan control sii daayo mas'aad way soo baxaysa dan ka soo qaato oo control qabto move toolka way soo baxay dan sii daayo kaasayso marka qaabkaas kala isticmaal karta waxa kale oo muhiim ah iyadana in aad feature ay ka sameeyeen waxa jira waxyaalo badan tusaale ahaan oo kale wax ka sameeyaan featurekaas wax ka sameeyaan cron stamp-ka blushka wax loo yaqaan blur toolka wax loo yaqaan masxaad oo kale ay ka sameeyeen featurekaas waxa weeye tusaale masxaadadan soo qaado hadaan u baahna size-keedu weyneeyo ka waran right click baan siinaa kaasaan ka weyneeyo hadaan u baahna hardness-ka weyneeyo ama yareeyana halkaasaan ka weyneeyo kulli oo asaaskan oo kale brush toolka hadaan soo qaado isagana si right click baan leeyahay kaasaan ka weyneeyo right click baan siinaa kaasaan ka yareeyo ka weyneeyo kara hardness-ka iyo size-ka labadaba hardness-ka wuxuu ka dhigayaa marka tusaale ahaan blushkan hadaan soo qaado blushkan aan soo qaaday hardness-kiisa oo buuxinaya markaasi qaabku wuxuu qoray fiiri dag markaan siiyo waa caadi geeskiisu dhan waa dhameystiran oo si full wuxuu qoraya laakiin haddaan hardness-ka yareeyo ka waran waa khafiif u noqonaya marka hardness wuxuu ka dhigan yahay inaad ama buuxin kartid ama yareyn kartid marka buuxsana noqonaya wax full marka khafiifsana yareysin noqonaya wax khafiif qaabkaas u shaqeeyaa hardness-ku marka qaabkaas baa loo isticmaalaa waxyaalaha common-ka oo ay ka sameeyeen maxaa ku raadaya wax loo yaqaan tools waa very important in aad fahansantahay toolska base-ka qaabka u shaqeeyaan maadaama aad baranaysid Photoshop-ka asaas ahaan wax lagu shaqeynayo toolska inaad si gaar ah oo practical samaysid oo isticmaashid waxay ku suurtagelinaysaa hadhow shaqada ku fududaato muuqaalka intaas aan kusoo gabagabeyn doonaa muuqaalku wuxuu noqon doonaa image principles-ka iyo wax loo yaqaan image resolution-ka ama size-ka qaabka u save garaysan lahayd oo aad samayn lahayd xogdaas documentiga markaad u baahan tahay inaad wax ka size-kiisa bedeshid ama resolution-kiisa baan insha Allah ku arki doonaa waana ay ku tilmaamo xiiso leh